gudoomiye ku-xigeenka koowaad mudanayaasha dhammaan shaqaalaha saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan filayaa dooda maanta xeerka matalaadda gobolka banaadir oo ka mid ah xukumihii aan hore u sheegay iyo aqli wareerintii ama ku cayaaristii aqliga yarka oo nagu jiro marka aqoonta laga tago. aqoon alxamdulilah sharci dejiyaashii dalkaana 20 sanaan ku jira baarlamaan, laakiin aqoontayda maadiga ah looyarnimo maaha, laakiin looyarada waa ka cilmi badan dhinaca sharciga, waayo wax badan aan soo akhriyey waxa aan ku shaqeeyo. tan kalena mudana gudoomiye waxaan nahay Soomaali leh diin aaminsan ilaahayna qooma duleeyo ilaa ay ayagu isduleeyaan. dadka xun madaxun ama dhinacay rabto wax u wareejiso sida annaga xildhibaanada waayo haddaan wada fiicnaan lahayn 30 sano wixii aan duminay ma dhisan waaye. intaas markaan ka gudbo waxaan saldhig uga dhigayaa taas mudane gudoomiye alif kow ka qal waxa kaloo jira mahmaadaas raaca hal abuurka suugaanta Soomaalida dowga aada boorame kuma gee xeerkii iyo dastuurkii loo bajaano kuma fulo umadaan dabci aqoon. maanta waxaan maqlayaa dastuurkan waa qabyo, laakiin qabyadan ku dhaartay inaan fuliyo. waxaan ku dhaartay inaan sida danta dalka dadka ugu jirto ugu fuliyo qabyadaas. dhaartii kadib maanta maan rabaa inaan dhinac kale u wareejiyo waa qabyo, taasoo caqli ku cayaaris maaha. dumbuqayga hays kale waxa loo gudbiyay annaga ma yasiir ma shaqaynayso taas. waxa kaloo intaa ii dheer mudana gudoomiye duruufahan ku soo shaqaynay sharcigii doorashooyinka markii ay soo gudbisay xukuumadda barnaamijka sharciga xukuumadda soo gudbisaa halkan la mariyey waa la gudbiyey aqalka sare u maray madaxweynaha jamhuuriyadda saxeexay kadib guddiyaa loo saaray. guddigii waa soo wadwadeen waxay yidhaahdeen xeer baa loo samayn doonaa. golaha shacabka laga diray dowlad goboleedyada soo mareen Jabuuti seminaar ku soo qaateen xeer baa loo samaynayaa. baarlamaanka xeer u samaynaya noon golaha shacabka baarlamaanka oo laba aqal way soo socdeen. guddi isku dhafoo labada aqal labada guddoon saareen oo guddoomiyaheenu ka mid yahay saxiixa mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan. waxay ayaguna dhaheen xeer baa laga samaynayaa oo labada aqal ayaa loo soo wareejiyey. waxaan gacanta ku hayno waa intaas. arrintan mooshin kuma suurto gelayso, macno kale kuma samaynayso, waayo qodobadii aad soo dhigteen oo 4 ahaa maalin horeba mooshin intaa ka tiro badan baa laga keenay. laakiin kii xeerka qoondada haweenka iyo xeerka quraasta gobolada waqooyi ama Somaliland kani waa ka duwan yahay wuxuu u baahan yahay
amendment dastuur wax ka bedel qodob dastuuri ah kan wuxuu uga bedelan yahay dastuurka qabyada ah ayaa la rabaa matalaada muqdisho waxay soo bilaabatay qaran burburkii kadib 2000 ee carta guddiga maqaamka muqdisho waxaa madax u ahaa intii joogtay Dr. Hussein Ali Ahmed maalintaas laga soo hadlay dastuur ma jirin waxa jiray ahdi qarameed maqaamka muqdisho tan iyo maalintaas ilaa maanta 20 sano waa ku yaala marka waxa halkan yaala duruufaha dadka iyo dalka jira in lagu qaybsado waa run in qodobka 9aad ee dastuurkan ku cad yahay maqaamka muqdisho darab waan sheegay matalaada gobolka banaadir iyo maqaamka muqdisho waa kala laba matalaada gobolka banaadir waxay soo galaysaa 18 gobol ee Soomaaliya waxaan ognahay 18 bilcaks maanta in dawlad goboleedyo 5 ah ay bedeleen shaki kuma jiro taas oo waa wada ognahay haddana waxaan ognahay dawlad goboleedyada dalka ka jira iyo Soomaaliland laga soo bilaabo carta ahdi qarameedkay ku cadeey cidii xusuusata raali ahaada kabriyeyash cidii xusuusata iyo cida aan xasuusan charterka carta waxa ku qorneed Somaliland iyo Puntland markay caalamka noo aqoonsaday Somaliland Puntland iyo South Central Somaliland iyo Puntland charterka carta waxa ku qornaa inta kuwa kala la dhisayo sidooda loo maamula lagu la dhaqma waayo way ka koreeyeen labadii kun oo cartay ka horeeyeen ay dhismeen maanta sifayaashaas aan sharciyada ku salaysnayn ayaa wixii u abuurmeen kadibna dawlad goboleedyada kale iyo gobolka banaadir oo halka fadhiya samaysmay dawlad goboleedyadana hadayti laba gobol iyo barba qofka maqlaayay sida qaanuunku qabo waa ugu yaraan laba gobol haddii 5 gobol ay sheegtaan iyo hadday 3 sheegtaan iyo hadday 2 sheegtaan iyo hadday midii bar sheegtaan ayagoo madaxay majlis kula jiro ayay dhisan yihiin si sharciyana kuma dhisan Somaliland soo liisanaagay haysataa Puntland soo liisanaagay haysataa galmudug ay haysataa Puntland gobolka muduga ugu jira koonfur galbeed marna waa 6 marna waa 3 Jubbaland waa samaysanta gobolka banaadirna waa titimaya mid sharciyo ku abuurmay oo maanta jirana ma jiro laakiin haddana waxaan ognahay beenteen ma dhihi karno gobernatorial waa madaxweyneyaal waa madaxweyne shacabku loo sheegi karaan laakiin nidaamka aan ku dhisanahay dawlad goboleedyada ragga madaxda ka ah waa madaxweyneyaal ee ma aha gobernatorial hal sharci ma samayn karno ilaa ay ayagu talo ku yeeshaan walaalkay nuur iidow beyle mudane musharax madaxweyne hirshabeelle waa u yahay intana gobernator ka dhahaa taasi ma shaqayso marka intaas aan ka soo gudbo waxa meeshan yaala in qodob dastuuri la bedelo mudane gudoomiye waxa tiri hal abaaro waa xanuun 54 iskama imaanin 54 waxay ku timid 18 gobol oo min 3 ah 18 gobol oo min 3 ana dusha lagu kala qaatay golahani mudane gudoomiye ku xigeenka koobaad awood uma laha sidii madashu 54 u qaybisay inaan u qaybino ma been baa sheegaynaa aan isdhegaysano yaa qaybinaya xitaa haddaan hadda matalaad amar siin
yaa qaybinaya haddaad inta maanta ka ansixiso yaa qaybinaya konton iyo afartaas waa la soo qaybiyey way samaysantay raalli ahaw xanuun 20 sano ah oo ay banaadir qabto waa qirsanahay laakiin jidka loo maraayo ma aha jidka ay wax ku heli lahayd banaadir 135 baa sheegtay 276 haddii lagu saxiixo ha qaldina cidii wax la rabtana jid qalad ayay ku qaadin sidaas lamida qodob wax ka bedelis u baahan haddii xanuun iyo damqasho jiro maanta waad samayn kartaan baarlamaanka 276 inaad ka dhigtaan 331 oo aad ku dartaan dhowr iyo 30 kursi si Soomaali siman oo shambeelo loo helo waa xanuun kale oo meel lamida oo 20 sano yaala qodobadana aan hal mar wada furno si Soomaali siman loo helo oo banaadir mataladeedu haddayna u wada alif koob ka qalooxday ku tiba ani waa iskugu kaydsan tahay waa sahal horta kowga waa kursi madacaan ah 310 shan u qaybi min 60 iyo 2 xubnood banaadir marka mudana gudoomiye haddii la rabo banaadir in matalaad lala qaybsado 54 sifo sharci ay ku qaybsantee 133 u qoray reer banaadir iskale gobolka banaadir baa leh ha isku dayin 4.5 ina 13 ku qaybsato waayo deegaanada kaleba dadka deganaa qaybsaday dadka degan baa qaybsaday xaq waxay u leeyihiin haddaad mooshin ugu soo saxiixday iyo haddaan kugu raacayo anigoo mooshinkaas xoojinayo 13 xubnood haddii la gaarsiiyo waa in ay noqotaa in ay qaybsadaan dadka dega gobolka banaadir oo u dhashay oo aan la taraxin waana hawiye iyo beesha shanaad hawiye iyo beesha shanaad sida deegaanada kale loo qaybsaday haddaad rabtaan beelaha kale inay ku darsanto 13 kale lagu daray ka dhiga mooshinka oo 13 kalena Soomaali u qaybiya 13 kale Soomaali u qaybiya fiiri ma waxaad ii sheegaysaa inaad xalaal tahay oo aad 11 qaadatay adiga oo ah Somaliland oo aad hal kursi oo 0.5 aadan bixin maantana inta waxaad kula xisaabtamaysaa xildhibaanada dir waqooyi hayba kula jiro awuusa bariye mashallah maxawsiin 11 baad adoo Puntland qaadatay hal carab saalaxna ma soo siin Ibrahim maydan soo siin tumalawna maydan soo siin deegaanka idin la dega koonfur galbeed baad ku qaad kamaydan soo siin Jubbaland baad sideed ku qaadatay kamaydan soo siin beesha shanaad way sharfantaa Hirshabeelle inay ka soo siisay xubinta ugu fiicneyd oo gabar ah aadna u qurxoon marka maanta runtaan isu sheegaynaa haddaan nahay la rabno yaana noqonin laba beelna waa diidan tahay laba beelna way ogoshahay oo banaadir bay kabaysaa fuleexantii ma booga waad istaqaanaan kulligeen waad is ogtihiin marka dacar hadday ka qaraartaa waa inaad sida malabka u mulsato xaqiiqda dhabta hortaal walaa ina degdegkan 13 hawiye beesha shanaada iska leh
aku dapat deganaan aragtidayda xortaan halkaa u taagana maxaad ugu qabsanaysaa marka matalaadooda canshuurtooda la cunaa inta la sameeyo walaalaheen waa jecelnahay kan ma aynan jeclidiin ogolaada 13 ogolaada 180 iyo cod aqalka sare allah oo qabnaa asagana waa dabageli doonaa duwa teers waa lagu meel marinaa laakiin aw xintir xoolay waa ku sii waana ka haysta aw xintir ma jiro banaadir xaq bay u leedahay talaata kale aan qaadaynana 35 kursi halkaas marna amedmanti aan wada sameeyno baarlamaankana aan ka dhigno labada aqal 311 mudane gudoomiye mahadsan